shahiide walaalkayga qiimaha badana waxaa iman doonta galab galbaha ka mid ah waxaa ku soo mari doonta saacadaha adduunyada ka mid ah laakiin adigu adduunkan aadan joogi doonan dadku ay shaaha cabbi doonaan facebookyada ay soo geli doonaan laakiin adigu aad ka maqnaanto dadku qaar ay tukan doonaan qaarkood ay dhal iyo carruur iyo maaragtay ubad korsan doonaan laakiin adigu aad ka maqnaan doonto marka su'aasheedu waxay tahay adigu keed noqon doontaa nebigu laba qola ayuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskii wariyay imaam muslim can qataada nebiga waxaa la soo mariyey janaaza markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mustariixun ow mustaraaxun minh yacnii qofku markuu dhinto ama waa laga raaxaystaa ama waa loo raaxeeyaa adigu marka aad dhimato siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam keed noqon doontaa qofka raaxaysan doona nebigu waxa uu yidhi waa ninka ka tegi doona dhibaatada iyo mashaakilka adduunyadan kadibna u gudbi doona raxmada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo naciim iyo janno ku noolaan doona wuxuu ka tegayaa nasabka iyo tacabka iyo mashaakilka adduunyadan markaasaa wuxuu u gudbi doonaa jannada iyo naciimka iyo raxmada iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhowaanshihiisa iyo meel qurux badan qofkaasi waa qofka raaxaystay almustaraaxu minhu qofka haddaba laga raaxaystay ee bilaadka iyo addoommadu ay ka raaxaysteenna waa qofka maanta markuu dhinto dadku ay leeyihiin ilaahay baa na dhaafiyey dhibaatadiisii ilaahay baa na dhaafiyey xantiisii iyo caydiisii ilaahay baa na dhaafiyey qaraabo goyskiisii iyo fidnadiisii ilaahay baa na dhaafiyey dariskii baa kaa raaxaysanaya ehelkii baa kaa raaxaysanaya qaraabadii baa kaa raaxaysanaysa dadkoo dhan baa kaa raaxaysanaya su'aasheedu marka waxay tahay haddaad caawa dhimato adigu ma waxaa tahay qofka raaxaystay ee janno iyo nicim u gudbi doona siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mise waxaa tahay qofka laga raaxaystay ee ilaahay baa na dhaafiyey la yidhi walaal malaku mawdku waa uu kugu soo dhow yahay mar lagu qaban doono ma ogid ilaahna wuxu uhi subxaanahu wa tacaala fa asaabatkum musiibatu almowt musiibatan ugu weyn ee qof ku dhacda waa mowt wayna ku haleeli doontaa laa maxaalata minh wax aad ka fakan doonta ma ahane u diyaar garow insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu